wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga ee dalka Turkiga, Dr. Alparslan Bayraktar, iyo wafdigiisa oo soo gaaray Muqdisho si ay uga qayb qaataan soo dhoweynta markabka sahminta shidaalka Oruk Reis magaalada Muqdisho, ayaa soo dhoweysay wafdi ballaaran oo ka socda dalka Turkiga, oo uu hogaaminayo wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga, Dr. Alparslan Bayraktar. Wafdigan ayaa u yimid ka qaybgalka munaasabadda soo dhoweynta markabka sahminta shidaalka ee Oruk Reis, kaas oo ku soo xirtay dekedda Muqdisho. Markabkan muhiimka ah ayaa hadda ku guda jira howlo sahminta shidaalka, isagoo diiradda saaraya 3 xirmo sahmineed oo ku yaala xeebaha u dhexeeya magaalooyinka Mareeg iyo Hobyo ee maamulka Galmudug. Wasiirka Batroolka iyo Khayraadka Dabiiciga ee Soomaaliya, Cabdirasaaq Cumar Maxamed, oo ka hadlay dhacdadan muhiimka ah, ayaa tilmaamay in booqashada wafdigan heerka sare ahi ay astaan cad u tahay walaaltinimada iyo xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga. Wasiirku wuxuu sheegay in tani ay u noqon doonto bilowga xilli cusub oo iskaashi dhaqaale iyo horumar ay labada dal wadaagayaan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Dr. Xasan Sheekh Maxamuud, oo ka hadlay munaasabadda, ayaa uga mahadceliyey dowladda iyo shacabka Turkiga taageerada joogtada ah ee ay siiyaan Soomaaliya. Wuxuu si gaar ah u xusay madaxweynaha Turkiga, Mudane Rajab Tayyip Erdogan, oo uu ku tilmaamay hogaamiye had iyo jeer garab taagan Soomaaliya. Madaxweynuhu wuxuu yidhi, anigoo ku hadlaya magaca ummadda Soomaaliyeed, waxaan u mahadcelinayaa shacabka Turkiga, dowladda Turkiga, iyo hoggaankooda Mudane Rajab Tayyip Erdogan. Turkiga waa dal mar walba tuso caalamka in Soomaaliya aysan hilmaamin, waana mid mar kale maanta muujinaya sida uu uga go'an yahay horumarka iyo awoodda Soomaaliya. Waxaa noo bilowday waa cusub ee Soomaaliya ay ka faa'iidaysan lahayd khayraadka dabiiciga ah ee Eebbe nagu manaystay. Wuxuu sidoo kale xusay in sahmintan ay ka mid tahay dadaallada ay dowladdu ku doonayso in ay Soomaaliya kaga dhigto dal leh awood dhaqaale oo xooggan, wuxuuna carabka ku adkeeyey in dowladdu si taxadar leh u maamuli doonto khayraadkan si loo hubiyo in uu shacabka Soomaaliyeed u noqdo mid wax ku ool ah oo lagu xoojiyo horumarka qaranka. Markabka sahminta ee Oruk Reis, oo ay weheliyaan maraakiib kale oo farsamo iyo amni u haya, ayaa si rasmi ah u bilaabay sahminta shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee xeebaha Soomaaliya. Wargeyska Turkish Century, oo ah wargeys ka soo baxa dalka walaalaha ah ee Turkiga, ayaa qoray warbixin faahfaahsan oo ku saabsan sahminta hordhaca ah ee Soomaaliya. Wargeyska ayaa ku tilmaamay xogaha ilaa hadda la helay inay aad u rajo gelinayaan, isagoo xusay in Soomaaliya ay qarka u saaran tahay inay noqoto dal muhiim ah oo ka mid ah waddamada tamarta caalamka. Sahmintii ugu horeysay ayaa ka socota deegaanka Mareeg, gaar ahaan xirmooyinka sahmineed ee loo yaqaano 125 iyo 126. Baaritaanka hordhaca ah ayaa muujiyey in goobahaas ay ku jiraan kayd weyn oo gaas dabiici ah iyo shidaal cayriin ah. Wargeyska ayaa xogtan ku sifeeyey mid aad u weyn, isagoo isticmaalay ereyga masife oo uu ku macneeyey xaddi ballaaran oo shidaal ah oo ku jira badda hoosteeda. Saamaynta horumarkan iyo himilooyinka mustaqbalka Soomaaliya haddii baarista sahmintu ay ku sii fido aagga dhaqaalaha gaarka ah ee Soomaaliya, waxaa la rumaysan yahay in Soomaaliya aysan dib dambe u soo sheegin faqriga. Tani waxay sidoo kale Soomaaliya ka dhigi doontaa mid ka mid ah 10 dal ee ugu kaydka badan shidaalka iyo gaaska adduunka, sida lagu sheegay warbixinta wargeyska Turkish Century. Daraasadihii ugu horreeyey ayaa tilmaamaya in sahminta lagu wadi doono badda Soomaaliya ilaa iyo bisha Maajo ee sanadka 2025, iyadoo lagu guulaystay in xog faahfaahsan laga helo khayraadka dabiiciga ah ee ku jira dhulka hoostiisa iyo badda xeebaha Soomaaliya. Wasiirka Batroolka Soomaaliya, Cabdirasaaq Cumar Maxamed, ayaa sheegay in markabka sahminta ee Oruk Reis uu xogta baarista maalin walba la wadaago wasaaradda, taas oo u fududaynaysa dowladda in ay si dhow ula socoto sahminta iyo natiijooyinka ka soo baxa. Wasiirku wuxuu ballan qaaday in dowladda Soomaaliya ay dhowaan bulshada la wadaagi doonto xog faahfaahsan oo ku saabsan waxa ilaa hadda laga helay sahminta. Markabkan ayaa la filayaa inuu maalmaha soo socda u sii gudbo magaalo xeebeedka Hobyo, halkaas oo la rajaynayo in xog cusub oo ka sii fiican tan laga helay Mareeg la helo. Tallaabadani waa mid loo arko horumar weyn oo kor u qaadi karta dhaqaalaha Soomaaliya, isla markaana ka dhigi karta dalka mid ka mid ah awoodaha waaweyn ee shidaalka iyo gaaska adduunka. Horumarkan ayaa muujinaya wadajirka iyo iskaashiga taariikhiga ah ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga. Dowladaha iyo shacabka labada dal ayaa si wadajir ah ugu rajo weyn in sahminta shidaalka ay noqoto mid guul leh, taas oo horseedi karta horumar dhaqaale oo baaxad leh oo wax ka beddela mustaqbalka Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa ballanqaaday inay si dhow ula shaqayn doonto la hawlgalayaasha caalamiga ah si loo xaqiijiyo in khayraadkani uu ka faa'iidaysto shacabka Soomaaliyeed oo dhan.
safiirka dowladda Denmark ee Soomaaliya, Sten Son Andersen, ayaa u hoggaansamay u yeeristii wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, isagoo booqday xarunta wasaaradda halkaas oo uu kulan gaar ah kula yeeshay wasiirka arrimaha dibadda Axmed Macalin Fiqi. Kulankan ayaa ka dhashay hadal uu safiirku jeediyey oo si weyn looga dareemay inuu lid ku yahay madaxbannaanida iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya, kadib markii uu booqasho ku tagay magaalada Hargeysa isagoo qayb ka ah kormeerayaal caalami ah. Safarka safiirka ee Hargeysa ayaa loo arkay mid khaldan oo khilaafsan siyaasadda iyo shuruucda dowladda federaalka Soomaaliya, taas oo keentay in wasaaradda arrimaha dibaddu ay si degdeg ah ula xiriirto safiirka, una yeerto si uu caddayn uga bixiyo ficilkiisa. Falcelintan ayaa ahayd mid aad loo soo dhoweeyey, iyadoo lagu tilmaamay tallaabo cad oo muujinaysa sida dowladda federaalka ay uga go'an tahay ilaalinta midnimada iyo qarannimada Soomaaliya. Safiirka oo raaligelin iyo cudurdaar bixiyey kulanka kadib, safiir Sten Son Andersen ayaa raaligelin iyo cudurdaar buuxa ka bixiyey hadalka uu jeediyey iyo booqashadiisii Hargeysa. Wuxuu sheegay in Denmark ay si buuxda u ixtiraamayso madaxbannaanida iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, oo ay ku jirto Somalilan. Isagoo si cad u hadlay, ayuu safiirku sheegay in hadalkii uu jeediyey uu khalad ahaa, raaligelinna uu ka bixinayo. Waxaan rabaa in aan si buuxda uga cudurdaarto hadalkii aan jeediyey ee loo arkay mid lida ku ah midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Denmark waxay ixtiraamaysaa midnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, oo ay ku jirto Somalilan. Waxaan bixiyey raaligelin rasmi ah, ayuu safiirku ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa X horay u ahaa Twitter, kadib markii uu la kulmay wasiir Axmed Macalin Fiqi. Denmark iyo Soomaaliya oo leh xiriir wanaagsan intaa kadib, safiirka ayaa hoosta ka xariiqay xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya Denmark iyo Soomaaliya. Wuxuu tilmaamay in labada dal ay leeyihiin iskaashi dhow oo dhinacyo kala duwan ah, gaar ahaan kuwa ku saabsan dowlad-dhisidda, isbeddelka cimilada, nabadda iyo amniga. Denmark iyo Soomaaliya waa laba dal oo xiriir taariikhi ah ka dhexeeyo, kana wada shaqeeya arrimo badan oo muhiim ah. Waxaan si wadajir ah uga shaqaynaynaa dhismaha dowladnimada, ka hortagga saamaynta isbeddelka cimilada, iyo sugidda nabadda iyo amniga, ayuu hadalkiisa sii raaciyey danjire Sten Son Andersen. Jawaabaha kala duwan ee arrinta raaligelinta safiirka Denmark ayaa dhalisay falcelinno kala duwan oo ka yimid dhinacyada kala duwan ee siyaasadda Soomaaliya iyo Somalilan. Dowladda Somalilan ayaa dhankeeda si kulul uga jawaabtay hadalka wasiir Axmed Macalin Fiqi, iyadoo ku eedaysay inuu ka xun yahay horumarka reer Somalilan iyo doorashooyinkii ay dhowaan qabsadeen ee guulaystay. Waxay sidoo kale ku doodeen in wasiirku uu dhaawacayo iskaashiga caalamiga ah ee Somalilan ay la leedahay beesha caalamka. Sidoo kale, siyaasiyiin u badan kuwa Somalilan ayaa ku eedeeyey wasiirka in uu kiisas siyaasadeed ka dhigay safiirada caalamiga ah ee booqday Hargeysa, iyagoo ku tilmaamay ficiladiisa kuwo lagu horjoogsanayo horumarka Somalilan. Waxay ku doodeen in Soomaaliya ay quus ka joogto horumarka ay reer Somalilan ku tallaabsanayaan. Dhanka kale, siyaasiyiin badan oo ka soo jeeda Muqdisho iyo gobollada waqooyi bari ee Soomaaliya, gaar ahaan kuwa Khaatumo, ayaa si weyn u taageeray doorka wasiir Axmed Macalin Fiqi. Waxay ku ammaaneen sida uu si firfircoon uga falceliyey gefka ku dhacay qarannimada iyo wadajirka Soomaaliya. Waxay ku tilmaameen wasiirka inuu yahay diblomaasi geesinimo leh, oo si adag u difaacaya midnimada iyo madaxbannaanida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya ayaa muddooyinkii u dambeeyey soo saartay digniino culus oo ku socda diblomaasiyiinta shisheeye. Waxay uga digtay inay ku xadgudbaan madaxbannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya, iyagoo u socda ama si dadban ula falgalaya maamulka Somalilan. Arrintan ayaa loo arkaa mid muhiim u ah sidii loo ilaalin lahaa midnimada dalka iyo xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya la leedahay caalamka. Xiisadda ka dhalatay booqashada safiirka Denmark ee Hargeysa iyo hadalladii ka dhashay raaligelintaasi ayaa weli ah mowduuc kulul oo si weyn looga falanqaynayo gudaha Soomaaliya iyo caalamkaba. Waxaa si weyn loo eegayaa sida tani ay u saamayn doonto xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Denmark, iyadoo sidoo kale isha lagu hayo doorka ay arrintani ku yeelan karto xiriirka guud ee Soomaaliya la leedahay beesha caalamka. Waxaa muuqata in dowladda federaalka Soomaaliya ay sii wadaysay dadaalkeeda ay ku ilaalinayso midnimada iyo qarannimada dalka, iyadoo si cad uga soo horjeeda ficilada iyo hadallada halista ku ah wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Sidoo kale, waxaa lagu wadaa in wasaaradda arrimaha dibadda ay sii xoojiso wacyigelinta ku aadan ilaalinta xiriirka caalamiga ah iyo difaaca qarannimada Soomaaliya.